كورن أديك أونوين جبر أجعلي رير كودي كدونتي balse lagu yiri adeer gabadheena waad ka da'weyn tahay uma qalantid naga raali noqo kadibna ay tolkaagu ku soo hiiliyeen ka waran haddana adiga oo wiil dhalinyaro ah gabar aad soo jeclayd 2 sano oo aad ku heshiiseen mustaqbal guur kadibna aad maqasho in arooskeedii uu dhacayo kadibna aad soo aadid saaluunkii lagu qurxinayay halkaasina aad ku miir beesho waxaan halkan idinkula wadaagayaa arrimahaasi oo dhan balse marka hore waxaan idinka codsanayaa fadlan fiidiyoga like-ta noo saara haddii aadan hore subscribe u ahayn nagu soo biir oo subscribe-ta noo saar gambaleelkana furo fadlan fiidiyogana share noo dhaha si asxaab badan oo wanaagsan ay noogu soo biiraan aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waa sahar sahan oo idin leh soo dhawaada marka hore waxaan ku horeynayaa ninkan da'da weyn oo loogu diiday da'da gabadhii uu jeclaa haddaba ninkan markii gabadhii uu rabay uu jeclaa ay reerkeedu ku yiraahdeen naga raali noqo gabadheena waad ka da'weyn tahay ayaa waxa dhacday in arrintaasi ay maqleen reerkiisa ama tolkiisa aan idhaahde kadibna ay arrintaasi aad uga xumaadeen isla markaasna ay ku dareen gabadhan oo 17 sano jir ah halkaasi oo loogu dhigay aroos aan inaba caadi ahayn sida aad la socotaan bariyahan dambe ayaa aroosyada waxa dhacda in ay casumaan dadka ay markaasi u arkayaan nacabkooda ama cadowgooda halkaasina ay ku buufiyaan cayayaanka halkaasi ayaa waxaad moodaa heesaha ay ka shidanayeen ee halkaasi ay ku baashaalayeen in ay u arkeen markaasi cadow jabis ka mayro wixii ku soo maray anagoo meeshaan iska fadhin oo shaqadeena noo socotaan waxaan aragnay wiil albaabka ku naqanayo saano umar maamadu inta fadhisiya markay ii sheegtay markaas waxa dhisay liga inaan aado waaye markaas kadib waxa nool lahay gabar inta ku jirto oo baahan yahay wiilka gabadha markay soo bixaysan wiilka joogo ka dhacay anaga dhan waa naxnay markaas kadib wiilal meesha taagnaayay iyo gabadhii anaga dhan waa qaadnay mootadii ala saar gabadh dhabteeda saartay saani isku duubtay cabaar way ku kor fikirtay cabaar kadib wuxuu soo naaxiyo naqd mootadii saartay weeraal gelisay asan weeraal gali wuxuu dhahay wax aan ku qaw ma leh waa ku jeclaysaan oo kale hay galin adi cabaar adi daba gabadhan la wareysanayo waxa ay ahayd gabar ka shaqeysa saaluunkii lagu hagaajinayay wiilkan dhalinyarada ah gabadhii uu jeclaa ama ay isa soo jeclaayeen aan idhaahde haddana waa kan wiilkii isaga oo la wareysanayo bal qisadiisii iyo sida wax u dhaceen ila dhageysta kiibo
meesha ku mirbeela waan dhacwaa suuxe saas ay tahay gabadhaasna 2 sano isla marka haddaba arrinta ku dhacday wiilkan dhalinyarada ah aad iyo aad ayay u xanuun badan tahay in muddo 2 sano ah gabadhii uu la socday oo uu jeclaa guurkana ay ku ballameen in ay bishani isla aqal galaan in ay ka raacdo nin kale oo ku nool qurbaha ama lacag ha ku raacdo ama in uu dhoofiyo ha ku raacde ballantii ayay uga baxday nabsi lama galo ibraahim waa nin dhalinyaro ah run ahaantii jacaylna u qabay gabadhan daacadna ahaa daacadina ma hungowdo ayaa lagu mahmaahaa waxaan ibraahim ilaahay uga baryaynaa in uu qalbiga u qaboojiyo mustaqbalkana ilaahay uu siiyo qof ay isjecel yihiin jacayl aan hal dhinac ahayn gabadhan jacaylka hal dhinac ayuu ahaa isaga kaliya ayaa jeclaa sida ay u eg tahay maxaa yeelay haddii ay jeclaan lahayd ugama baxdeen ballantaasi ay la gashay wiilkan dhalinyarada ah kamana doorateen lacag iyo in ay meel kale aado nafta run wax u jeceli waxa ay jeceshahay qofka ay jeceshahay in ay darin kula seexato iska daa wax kale haddaba ibraahim mustaqbalka khayr badan ayaan u rajaynaynaa waana usoo duceynaynaa in ilaahay kurbada ka dulqaado wiilkan dhalinyarada ah gabadhaasina in uu fuujarkeeda in ilaahay u hagaajiyo iyadana waa qof dhalinyaro ah gefka qofka bini aadanka waa uu geli karaa asxaabay waxaan idinka rajaynayaa in aad usoo duceysaan wiilkan dhalinyarada ah videogana like-ta noo saara haddii aadan hore subscribe ahayn nagu soo biir subscribe-ta noo saar gambaleelkana furo waa saarasaan oo idin leh intaan videogan mid lamida ku kulmayna waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu love you all bye bye see you soon